toddobaadka hore dhegaystayaal intiinina dhegaysatay waxaad maqasheen jenaraal cabdiraxmaan caare oo ka mid ahaa madaxdii sare ee milatariga soomaaliyeed ee hogaaminaysay dagaalkii dhex mara etoobiya iyo soomaaliya sannadii 1977 ilaa 1978 jenaraal caare waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa dhaliishii abaalmarineed ee dagaalkii kadib iyo sida uu sheegay ujeedda la'aantii dagaalkaasi oo uu isagu u arkayay inay ahaydun in lagu burburiyo ciidamadii Soomaaliya ay markaasi lahayd waxa kaleeto uu jananku ka hadlay arrin ka dhacday meesha la yiraahdo garab case oo u dhow magaalada Jigjiga oo ciidamada Soomaalidu ay ku dileen 84 iyaga ka mid ahaa oo jenaraal Caare uu ku tilmaamay inay ka mid ahayn raggii dagaalka ugu qiimaha badnaa haddaba waxa isaguna aanu arrintaasi aanu wax ka weydiinay Cabdirasaaq Caqli oo ka mid ahaa saraakiishii wax ka hogaaminaysay ururadii ciidamada goobahaasi ka dagaalamayay Cabdirasaaq Caqli waxa uu bilaabay sida tan laba aag ayaan dagaalka ka qayb galay mid wuxuu ahaa aagan Harar ayaan ka qayb galay markii dambana waxaan ka qayb galay aagan Jigjiga iyo Jinacsani intaas area ayaan ka qayb galay waxaad ka warantaa Cabdirasaaq bal ka waran dagaalkaasi waxyaabaha aad ka xasuusan karto ama kuugu cusla adiga markaad eegto maxaa ka mid ah horta dagaalku runtii asalkiisuba marka dagaalka la galo waa wax wada dhib badan hase ahaatee waxay sii kala xun yihiin markay qofka ku adkaato marxaladda uu maraya ee aada uga adkaato intii aanu dagaalka ku jiray annaku waxay noogu xumayd markii aanu maraynay Harar agteeda oo markaa anigu waxaan ahaa taliye urur oo mar ururka iyaga la go'doomiyey oo afarta dhinacba laga maray oo la waayay meel cuntana loo soo mariyo iyo saad iyo rasaas midnaba la waayay markaa waxaan ku jiray doox Harar u dhow agteeda oo ilaa 3 kilomitir u jira markaa dooxaasi baa run ahaantii aanu difaac weyn ka galay markaa haddaba markay noogu xumeyd waxay markii aroornimadii buu dagaalku bilaabmay markay casarkii gaabnaad ahay ayaa raggii taangiga la dagaalamayay dhammaantood ay noqdeen wax dhaawaca iyo wax dhintay markaasina ilaa 3 taangi ayaa nagu harsanaa dabeeto 3dii taangi ayaa la waayay cid allayaale cid ku rida xabad lidka taangiga raggii ridayay ee taangiga xabadaha ku ridayay lidka taangiga yaqaanay ama basuu ka watay ama magaranaysaa qoryahan B10ka oo aanu haysanay markaa ama B11ka labadaba magaranaysaa ridayay ayaa dhammaantood waxay noqdeen rag dhaawac iyo dhimasho markaa waxay nagu kaliftay 2 nin oo dhaawac ahaa inaanu qaadno oonu hor dhigno taangiyada soo gelaya markaa wadada soo gelaya haddii markaa cadceedu dhacdana ciidanka iyagii oo nagu dhow oo diyaaraduhu hortaagnaayeen ayaa markaana soo gelaya oo ciidankan xagga dambe naga fadhiistay baabiinayaba labadii nin ee dhaawac ahaa ee la qaaday wadada labadooda dhinac baa la dhigay markuu taangigii dooxiisa uga soo baxay ayuu ku dhuftay ninkii ridayay magaranaysa lidka taangiga riday ayuu taangigii si fiican ula helay uu ku ololiyay dabeeta isna taangigii ka dambeeyey ayaa isna toogtay oo halkaa ku dilay marka ninkii kale lidka kale taangiga haystay ayaa isna taangigii toogtay isna ku riday kii kale xabadii kale ku riday isna ku ololiyay haddana taangiga ninkii toogtay ee dhaawacmay ee markaa joojiyay labadii taangi horta halkaasaa lagu joojiyay halkiiba ku waabeen dabeetana ciidankii waxay noqotay inuu kala jeesto oo aanu kala jeedsano oo markaa ilaa cadceedu dhacaysay aan xabashadii ay u suurtageli weyday inay ururkii dhinaca ka soo galaan cadceedii markay dhacdayna waxaabana soo galay ciidankayagii oo ilaa magaranaysaa dhowr urur ah haddaba waxaa iyadoo la yaab leh ninka sidaas oo kale ninka maalintaa dhaawac isagoo alla qaaday magaranaysaa taangiga toogtay ninkaasi wuxuu ahaa raggii lagu dilay Jigjiga ayuu ka mid ahaa oo dhaawac ahaantii inta loo soo qaaday la keenay Hargeysa markii uu soo bogsaday ayuu yimid Jigjiga dabeetana raggii lagu laayay Jigjiga garab cas lagu laayay ayuu ninkaasi ahaa isagoo nala jooga ayaana la yidhi markaa urur walba ha keenaan 12 nin oo ay ku kalsoon yihiin
oo markaa taliyihii aaggaa xukumayay oo ahaa maxamuud cero cornel cero ahaa ayaa yidhi urur walba 12 qof ha keeno dabeeta 12 qof nin walba waxbuu u qaatay sibuu u qaatay marka la 12 qof oo lagu kalsoon yahay run ahaantii aan markaa waxaan u qaatay 12 nin oo la dalacsiinayo oo wanaag leh markaa ninkaasaan ku daray dabeetana waxaan ogaanay in yar kadibba in raggii la laayay urur walba 12 nin buu keenay 7 urur baan ahayn oo meesha fadhiya marka waxa weeyaan in meesha 84 nin halkaa lagu dilay yaa 84 ka markaa mid dhaawaca oo ka soo fakaday oo meyd ahaan looga tegay ninkaasaa sheegay markaa in raggii la laayay laakiinse ninkaa ka soo badbaaday wuxuu soo dhex galay galabnimadii maqribkii ayuu soo dhex galay ciidankii meesha fadhiyay markaasuu yidhi isagoo ay gacanta kaga dhacday oo hawanaya ayuu yidhi war maganaysa waa raggii la isagoo haya marka adigu ninkaa miyaad aragtay miyaad la kulantay waktigaas waan alla saraakiishii la kulantay baanu ahaynay markaa kusoo noqotay u timid markaa magaranaysaa cornel cero oo tidhi magaranaysaa maxaa raggan dee lagu laayay iyo arrimaha oo dee magaranaysaa waabanu weydiinay oo waan u tagnay oo wax saraakiisheedii oo dhan ba u tagtay badidooda halkee bay ahayd halkaa ugu tagteen markaasay kula hadlayseen waxaanu ugu tagnay taliska oo ka samaysnaa markaa hodheel ku yaala jigjiga hodheel ku yaala ayaa taliska magaranaysaa aagaasi markaa laga dhigay hodheel magaalada bartikeega ahaan jiray ayuu talisku jooga halkaasaan ugu tagnay isagu muxuu idinku jawaabay markaad tirahdeen arrintaas yaa ka dambeeya ma sababta lagu dilay maxay tahay sababta lagu dilay wuxuu yidhi waxay ahayd buu isagu lahaa askar fara badan waxay sameeyeen inay markan dagaalka kululaaday inay dad badan cararaan oo ay aada uga soo baxbaxaan marka isagu wuxuu yidhi sababta lagu dhigayay horta waxa bixiyey buu lahaa madaxdaa ka sarreysa amarka bixisay buuri marka anigu waan fulinayay buuri ma garanaysaa si aan nin dambe usoo bixin oo aan usoo cararin rag ma garanaysaa example lagu tuso oo ma garanaysaa halaga dhigo ayuu isagu ka dhigay laakiinse taas rag badan oo saraakiil doonta ka bixiyo oo yidhi war dee wax suurtagelaya taas ma ahayn oo raggan ururada dagaalamayaaba laga soo guray kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq caqliye oo ka mid ahaa saraakiishii ka qayb qaadatay dagaalkii 1977 ilaa 1978 dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. haddaba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waqtigaasi intii aanay dagaalka caddaysanin waxa dagaalka xukuumaddii Soomaalidu ay ku doodaysay inuu ka dhaxeeyo jabhaddii xoreynta Soomaalida galbeed ee marka magaceeda la soo gaabiyo la oran jiray WSLF. jabhaddaasi waxa xogaya guud u ahaa intii dagaalku socdayba cabdilaahi xasan maxamuud oo markii dambe danjira noqday. cabdilaahi xasan maxamuud waxaanu weydiinay doorkii jabhadda WSLF ay ku lahayd dagaalkii Itoobiya lagu qaaday. waxaanu marka hore uu ku bilaabayaa sidii jabhaddu ay ku samaysantay. bismillaahi raxmaani raxiim. wallaahi aadan waa arrin aad u ballaaran laakiin haddaan soo gaagaabiyo dadka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed meel uu joogaba doonid rabitaan raqbad buu leeyahay. raqbadaas waxay ahayd gobolada Soomaaliyeed ee maqan in la xoreeyo oo xorriyad iyo gobonnimo la gaarsiiyo. dowladdii waqtigaa jirtay aad hadda sheekh taariikhda aad ka taabanayso 22 Oktoobar ka dambeysay 1969 ka dambeysay nimanka militariga ee Maxamed Siyaad madaxda ka yahay hogaamiyeen charterkeedii qodobadii dibadda waxay ku soo dartay dalalkaas maqan oo markaa saddex ahaa in iyagana xorriyadoodii loo raadiyo sidii lagu xoreyn karaba inkastoo ay hadalka ka muuqatay hab nabadgelyo in lagu raadiyo. arrintaas waxaa dadku way wax badan bay isku khilaafsan yihiin laakiin waxaan hubaa doonid Soomaali weyn in dalalka maqan ee Soomaali la doona raqbad saas inay dadweynaha Soomaaliyeed ku jirtay koonfur iyo waqooyi iyo meel kasta ay joogaan. marka 1962 maqtal daahir garaad jabhad uu madax ka yahay ayaa oo la yiraahdo jabhad tahriir Soomaali al-jabhah al-muttahida li tahriir Soomaali al-gharbi oo marka al-muttahida leeyahay looladan leeyahay inay ka muuqdaan gobolada Soomaaliyeed ee maqan oo dhan xataa Djibouti ay ka dhex muuqato dadkan Soomaalida galbeedka ka koreeyay xataa aan walaalaha nahay
harar iyo oo kale ay ka dhex muuqdaan aragtidu ay ahayd ama ay ku sameeyeen barnaamijkoodii siyaasiga ahaa jabhadaasu 60maadkii 63 64 ay dagaalamaysay waa kii laba goor labada dawladood dawladda Itoobiya boqortooyadii Itoobiya ee weynayd iyo dawladdii Soomaaliyeed ee markaa dhalatay ay hargdanka xunxun ee dagaalkii uu ka dhacay dagaaladii Togo Jaali iyo waa la yaqaanaa xuduudaha sida adag uga dhici jiray arrintaasu waxay koos gareynaysay dadka Soomaaliyeed oo xorriyad rabay inay kuna biiraan markaa raqbadoodu ahayd dawladdii Soomaaliyeed ee jirtay kadib tawajjuha siyaasadeed ee adduunka wuu isbedelay dadweynihii reer galbeedka ama dawladihii reer galbeedka siyaasadda adduunka gacanta ku hayay waxay go'aamiyeen oo Afrika u sameeyeen Afrika waxba loo yeerin jiray in xuduudihii uu isticmaaru ka tagay aan waxba laga bedeli karin inaga siyaasadeena way la bedelantay marka dambe waxaa lagu hawlgali jiray jabhadahani inay gaballadooda xoreeyaan dawladdii Soomaaliyeed ee jirtaana miday doonay ha ahaatee ay taakulayso waxaa marka aan soo ururiye waxaa dhalatay jabhaddii xoreynta Soomaali galbeed WSLF waxay dhalatay 1976 bishii January ayaa waxa lagu sameeyay jabhadda lagu doortay meel la yiraahdo Bari Weyne oo magaalada Wanlaweyn u dhow jabhaddaas waxaa la ii doortay xogayo guud aniga jabhadda halkaas lagu doortay markaa la dooran hayeen iyadana waxaa markaa koos gareeyay tii maqtal daahir dagaalkii dambe ee labada dawladood 64kii iyo yar hakatay kaalmihii dawladda Soomaaliyeed siin jirtayna wuu yaraaday marka way yar beeqbeeqday way jar joogsatay laakiin wali ruumadkii ama ay kulaylkii gudaha Soomaali galbeed uu ka jiray xabad yarna way iska dhici jirtay waa la cusbooneeyay marka jabhadii waxaa lagu cusbooneeyay haddaanan xaqa ka leexanin raqbadda dadweynaha Soomaaliyeed laakiin ay dadka Soomaali galbeed la yiraahdaa buddiga u ahaayeen iga aamin qabiil ma lahayn Soomaali waa u dhamay kadib jabhadda markii la doortay dawladdii kacaankuna way yar xoogaysatay oo midowga Sovieti iyo dawladaha bariga Yurub waxay ka heshay iyo China iyo Korea iyo kaalmo xagga hubka iyo waxyaabahaas ay ka heshay dadka Soomaaliyeed waxay bilaabeen marka Itoobiya burburtay boqortooyadii mudaharaad ba ku socda xayle waka xukunkii laga eriyay dalka ma la xoreeyo tabasho Soomaaliyeed bay noqotay arrintaasi qoysna gaar uma ahayn arrintaas way dawladdii kacaanka ee jirtay madaxdeedii way dafcisay horay u riixday in arrintaa wax laga qabto marka guddiga la aasaasay anigu waxaan ahaa tacliintan joogay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Banaadir yaan ahaa meeshaas Bari Weyne bishii January 2deedii taqriiban 1976 jabhadaas halkaasana lagu doortay tababar gaaban oo military oo anagu baro telefoon ay ku difaaci karno commandoosnimo yaan muddo galay intanadii madaxda ahayd guddiga fulinta 25 bay ahaayeen xogayaha guudna aniga ahaa ayay siinay tababarka jabhadu waxay lahayd kaadir ku soo tababartay mar hore Korea iyo China iyo meelahaas oo ay dawladdii Soomaaliyeedna u sahashay kaadirkaas inuu meelahaas tago saraakiisha Soomaalidana qaar baa noo imaan jiray General Galaal baa kamid ahaa haddaan waxba la qarinaynin waa taariikhda sheegay imaan jiray oo hawsha nala wadi jiray tababarkaana dusha ka ishraafi jiray ciidamo markaa noo xereysnaa oo meel la yiraahdo ku xereysnaa Qoriile oo Warsheekh agteeda ah iyo kuwa noogu xereysnaa meel la yiraahdo Agabar oo magaalada Hargeysa koonfurteeda ah iyo kuwa ku xereysnaa Shimbiraale meel ilaa Xudur agagaarkeeda intaaba ciidamo jabhadda oo horay u tababaraa dagaaladii hore galayna way tababari jireen khubara militariga Soomaaliyeedina way joogeen marmarna ma qarsoodi ma ahayn inay Kuubaan iyo wax noo imaan jireen oo wax noo yaani kaalmeyn jireen habka ma qarsoonayn dawladaha kale ma ogeen laakiin shacabka Soomaalida iyo dadka mas'uuliintii arrimahaas way la socdeen kadib dagaalkii jabhaddii waxay bilowday sanadkaas 76 ayaanu gelinay ciidan ka gelinay Shimbiraale Xudur area ceel barde 1200 ah aniga iyo General Galaal iyo niman nala socda waxaanu galay ilaa xuduudda Itoobiya ceel biciid meel la yiraahdo waxaad ka 20 kilomitir jira ciidankii duufaan markii dambe la baxayna waxaanu ka gelinay Qoriilaanu ka bixinay aniga General Galaal iyo niman kale oo madax ah iyagana waxay ka galeen ceel barde waxay mareen goday kolkay qalaafi iyo iimay goday dhexdooda joogaan ciidan ragaad la yiraah yaa halka lagu sameeyay ragaad macnihiisa waad garan inuu ciidamada Itoobiya lugta ka galo oo lagu barnaamij meel u dhaqaaqi waayeen oo goday iyo iimay la kala gooyo goday iyo qabri daare la kala gooyo ceel kar iyo qabri daare yani iimay goday la kala gooyo kii ka horeeyay gorgor baa la dhigi jiro horu u socday ilaa Gindar iyo Gooba
falladhna wuxuu usii gudbay fiiq iyo gobolka Hararge ciidankii ka baxay Hargeysa area Agabar waxay ka baxeen halkaa waxaa lagaga raray 58 baabuur oo dadka Soomaalida wadaniyiinta ee reer Hargeysaadka ay leeyihiin baa habeen madow xadka lagaga talaabi wadadan dheer ee Jigjiga ka baxday dhagax buur marta iyay ka gudbeen toga faafaneed ba halkaa lagaga dhaadhici axmaarada Jigjiga joogtay ciidamadoodu way ogaayeen way ku dhici waayeen hub casri ah iyo baazuuka aan loo caadal ahayn oo yaro garabka lagu qaato iyo raadiyaal rakaal oo lagu xidhiidho iyo wax walbana way wateen markaas waxa weeyaan Cabdullaahi ma intii aanay soo gelin ciidamada Soomaalida ma soo gelin ciidamo laakiin way la socdeen maya waxa la socday marka ciidamadu ka khubara bay ula socdeen saraakiil iyo dad yar yar oo ama saraakiil xiyeen oo aan dagaalka toos u galaynin ee tala ah baa la socday waxay ahaayeen jabhad tababaran ciidamada Itoobiya waxa lagu qasbay inay caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn ka bixi waayaan halka markay arintu marayso muddo kadib dagaalkuna socday ayaa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa maalin yimid tur isagoo safiirka Addis Ababa talax buu igu yimid للتاريخ وحن يان أشيء وضنيات بانا كموقت بصفتي أن حكايه جبهة حرين تاهي وحو يلي أحمد سليمان نوان صورك محمد سياد نوان صورك إثيوبيا ما أنت ويبربفتي هدي أن دل كاس ما أنت لقى حرين إثيوبيا forever هذا كذب وحويان ليسكودين هداد عبد الله وحسامين كرتو از حكايه قولي جود utag maxamed siyaad iyo axmed salabaan iyo dadka talada hayo SRC oo arinta lagu dhaqaaqo arintaas waxay ahayd abaal iyo kalgacayl weyn oo u hayay Cabdiraxmaan Axmed Cali aniga galabtii baan orodayay sidayoon dalbaday maxamed siyaad oo afisiyoonaha fadhiya inaan dalbado kolkaan dalabkii aan geystay oo waxaan rabaa odayga inaan arko oo dalbaday nin baa la ii soo diray sargaala ninkii aad hadda uma xusuusto nin iminka London ku nool oo la yiraahdo Maxamuud Ugaas inuu ahaa baan u maleeyaa ninkaas waa la qaaday Maxamed Siyaad oo keligii meel fadhiya kana cabadan oo gaxwo qaraar iyo wax ku haysto oo waraaqo iyo wax muraajacaynaya yaba la iigi waxaan ku iri Maxamed Siyaad waad mahadsan tahay qaranka Soomaaliyeed waxaad ka badbaadisay liidasho jaamacadii wadaniga ahayd inay furmaysaan arkaya ardaydii Soomaaliyeed iyo wixii in la badiyaan arkaa go'aanadan hadda soo baxayay waa go'aamo aad iyo aad wax ku oola qarannimo weynaatay oo koraysa yan dareensanahay Maxamed Siyaad marka waan ku buuqay waxaan arkay hadalkayga inuu aad ugu dhagan u leeyahay wuxuu yiri miyadan ogeyn in adduunku maanta ay niman reer galbeed la yiraahdo isticmaariyiin u taliyaan oo wax cayn kaasa aan la samayn karin yani ciidamada Soomaaliyeed inay toos u galaan waxaan idhi siyaabo fara badan ayaa la samayn karaa unidyaa lagu xoojin karaa jabhadda gudubgoboleedka dagaalamaya hubka loo kordhin karaa waxyaabahaas oo dhan ayaa la samayn karaa waa gartay iska tag buu yiri muddo gaaban kadibna anagoo kooxa buu noo yeeray wuxuuna yiri waxaan arrimahaas mudday socdeen maxay idin la tahay wuxuu kaloo dareensiyay in dadka Soomaaliyeed ka dambeeyay waqtiga awdiin yar muddo dhowr bilood 2 bilood 3 bilood pressure weyn inuu dadka Soomaaliyeed ku hayana oo aan ahayn dadka Soomaali galbeed dagay Soomaali weyn wuxuuna dareensiyay dadaan dabcan waxan bal la soconin oo dadka koonfurta si hoose u badan waa jireen laakiin gobolada waqooyi iyo gobolada dhexe iyo dalka Soomaali galbeed iyo dadkan kulaala xuduudda Itoobiya oo dhan ayaa xamaasada aad u qabay kolkuu noo sheegay oo aragnay inuu u dabacsan yahay arinta haddii taariikhda gafka yimaado waanu ku dafcinay waanu ku boorinay waxaanu nidhi wadaniyadeedii inaad hiiro wadani ah oo qowmi ah noqoto waxaa ka dhiban dalkaas inaad xorayso imsan baa haydeen habeenka markaa 3 nin baanu ahay waa adigiyo aniga iyo nin Maxamed Ugaas Cabdi Leeyda iyo nin kale oo aan sheegayn waad fahamtay Soomaa ayaama kadibna salaadiin iyo odayaal dhowr ah oo kooban oo aanu xogtaasiinay yaa u tagay inaanu anagu idin soo dafcinayaan la garanin baanu ku nidhi waxaan ka magac dhabayaa Suldaan Duulaan Rafle golihii shacabka iyo xisbiga iyo dadkana markaa xisbi lama samaynine arintu way gashay dadkii Soomaaliyeed iyo xisbi xafiiskii BRO ga iyo wardalkii ma la xoreeyo yaa lagu wada hadaaqay sheekadii baa faaftay way xoogaysatay markii dambe waa kii odaygu golaha shacabka geeyay kaasina waxa uu ahaa Cabdilaahi Xasan Maxamuud oo imika danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Qaahira ahaana
xogayihii guud ee jabhaddii xoraynta soomaalida galbeed ee WSLF. barnaamijkiina caawa intaas ayaanu ku soo gabagabaynaa tan iyo kulantideenna dambe hadduu eber raalli ka noqdo sidaa iyo nabad gelyo.